masaajidka la galaya iyagoo kaadidii leh iyagoo maxayna musuqay la wada galayaan macatabkiisita daakana la isku wada qabaa anagu waxaan fahmi weyno diinteenu qaada ka rasameysada hooyooyinka ka ganacsada noocyada kala duwan ee khudaarta ee Saliimada Axmed Gurey ee magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay cabashooyin kala duwan ka muujiyeen muddooyinkii ugu dambeeyay oo si xawli ay u soo galayaan magaalada Boorame qoomiyadaha Oromada iyo Amxaarada waxaanay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoona carabka ku adkeeyay in ay mudan tahay in dadkani loo diro dalka ay ka soo jeedaan Itoobiya waxaan doonaynaa dalku wuu dhinsan yahay dib xoog uu qabaa waxaan leenahay dawladda wanaagsan ee Ilaahay khayrka siiyay ee dalkii iyo maad aragtay maamulka haysaay inay noo qabato maxay ahaydna naga qabato waxani fusuqan iyo manaafaqadan lagu soo dareershay dalka ee waxa lee wax laga qabanayaa aanay jirin annagina waan ka daalay khaatiyaan baynu kala noqonay gidaar walba way jeefaan awlaada iyo kii aqliga xun leh iyo kii xanuunsanayayba xanuun bay qaadayaan marka waxa weeyaan masaajidka la galaya iyagoo kaadidii leh iyagoo maxayna musuqay la wada galayaan macatabkiisita ilaahay mayna ka cabsanaynin xanuun iyo cudur ayaan u nahay qarka waa in la naga qabto dawladda sharafta la waxaan ka codsanaynaa inay naga qabtaan annaga oo khaatiyaan ka noqonay qoomiyadaha nagu soo dareeray ee maxayna dalkoodii nabad ka soo qaxaya anagu dad nabad hadana lagu qaxiyo ma hayna waa dadna qaxinayaba dadkani Soomaalidu waxay tahay habeenka wixii kiciyuu qabaa waxa maanta naga hadliyay haddaana ree Awdal oo waliba magaalada madaxda Boorame waxa weeyaan dhibaato weyn baan qabnaa dadka ajaanibka ee xabashida iyo Oromada dhibta ay nagu hayaan Allah Raxmaanka noo og habeen iyo dharaar way soo qulqulayaan waanu qudunay caafimaadkii baan ka qudunay noloshayadii oo dhan baa baabaaday ganacsigeygii baa baabay waaga bariyay konton baa qofkiiba dul dagaya konton ka soo raba inaad wada dhaqaajso mid walba gacanta xud uga dhiibtay tag hadaa tiraado waxa weey walaal wixii Ilaahay ku qarwaan ku siiyay iga dhaqaaqa ma dhaqaaqayaan way is dhagaxaynayaan annaga dhib weyn baan haysata dawladda waxaan ka codsanaynaa gobolka Awdal maamul buu leeyahay maamulka gobolka Awdal ka codsanaynaa dadka sida ugu dhaqsaha badan in laga soo gaadho khaatib billahi baan khaatiyaan baan joognaa Ilaahay baan arkaya inta waan aamusnayn ummadda waan ilaga qaban oo dawladda nii soo kicoo niga qaban baan lahayn waa bariyay qaarad baan ugu soo dul dagaysa dhibaato weyn baan haysa hana laga qabto dawladdu inta Ilaahay ka baqdo canshuur bixiyaal baan nahay dumarkii suuqa ka ganacsanayaan meelan fadhiisanaan laanahay saxaradiyo bacal lagu sida dariiqina loo dhigaya meeshan fadhiisanana la dhigaya dhibaato in nagu filan farqaan ku haysanaa hana laga qabto dadka dawladda waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan ee ummadda naga qabato waanu taaganahay khaatiyaan baan taaganahay magaaladu way isbedeshay way naga bateen kolkaan suuqii anaga khaatiyaan ka kacno guriyii baan tagaynaa waaga barigiisa gobolkiisa way nagu garaacayaan iyagoo darsinaysa kuugu soo galayaan ilaa aad dhaqaajso wax siiso Ilaahay baa wax dhaqaajiya waanu kadeedanahay way naga bateen sidaan yeelaa dawladda noo soo jawaabto aleega ka baqdana eegto indhaha nagu eegto dawladdu waxaan ku leeyahay madaxweyne dad baan dul jooga gidaarkeena ugu kaacayaan banaankeena ugu kaacayaan aqalkeena nagu garaacayaan hadii wax la sii waayo way bayna dilayaan ana waanu afgaran weyna waan qaadi karinaana sida u dhaqsaha badan leh wax nooga qaban ku leenay madaxweyne dadkan waa dad xabasho waa dad kristana khamiiskii bay xidheen mashadadii bay xidheen dhaqankii islaamka ay bedeleen mideeda kale laba gidaarkana la isku wada qabaa anagu waxaan fahmi weyno diinteenu qaada ka rasameysada u dhaqsaha badan leh wax nooga qabo inaan ka codsanana kol iyo laba iyo saddexba sida u dhaqsaha badan laan ka rajaynana insha Allah bismillaahi kariim hadal badan ahaan ma buuxsho inta ay dumarka qayrkayba sheegeen waa wax sax ah oo jira weeyaan maanta hadii la celiyo xataa qol soo guraysa oo baabuur baa soo guraysa oo keenaysa suxufi cishqi MMTV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal